Taladan waxaa bixiyey oday waayeel ahaa oo ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey ee noloshiisa. Waxaa laga qoray mar uu la kulmay dhakhtar dhalinyaro ah oo uu kula kulmay isbitaal. Wuxuuna ku bilaabay sidan: Ditore, waxba ha walwalin. Waan ogahay in aan dhimanayo. Ma rabin in aan halkan imaado. Iyaga ayaa isoo khasbay. Fadlan ha iga walwalin. Timahayga fiiri. Way iga dhammaadeen. Waxaan ahay waayeel, adigana aad ayaad u yar tahay. Wax badan ayaan nolosha ka bartay. Haddii aadan dhib u arkaynin, wax ayaan kaaga sheegayaa waxa aan bartay. Markaan 4 jir ahaa, waxaan u malayn jiray adduunka inuu aniga igu saabsan yahay. Markaan 14 jirsaday, waxaan rabay inaan dunida dhan xukumo. Waxaan isku haystay inaan noqon doono ninka adduunka ugu weyn uguna awoodda badan. Markaan 21 jir ahaa, waxaan rabay inaan noqdo ninka ugu taajirsan adduunka. Markaan 25 jirsaday, waxaan rabay inaan helo jacayl. Markaan 40 gaarayna, waxaan rabay inaan caawiyo cid walba. Haddana adiga ayaan kula joogaa isbitaalkan, waxaan rabana waa inaan iska dhinto. Ma aragtaa in aan marba wax rabay inaan ahaado ama noqdo. Tan ugu muhiimsan ayaa ahayd inaan mar walba rabay inaan helo farxad. Waxaana u haystay qaabka ugu wanaagsan ee lagu helo farxad inay tahay in aad dhegaysato cid walba iyo taladooda. Markii aan rabay inaan jaamacadda bilaabo, waxaan jeclaa inaan barto cilmiga xayawaanka, balse waxay dadka ii dhow ku taliyeen inaan barto maadada injineernimada. Waan dhageystay. Ma aanan haysanin cid iga bixisa kharashkaas. Waxaan ku khasbanaaday inaan aniga shaqo iyo waxbarashada isku wado si aan isaga bixiyo lacagta jaamacadda. Markaan marayay sanadkii 3aad, way igu adkaatay inaan sii wato, waxaana go'aansaday inaan meeshaas uga tago. Markaan ka tegayna, dadkii igu qalqaaliyey in aan barto injineernimada ayaa i dhahay, waxaa kuu dhaantay in aad barato maadada aad jecleyd ee cilmiga xayawaanada. Markaan gaaray 28 sano, qof walba wuxuu ii soo jeediyey inaan guursado. Waxaad u baahan tahay inaad xaas yeelato, ayuu qof walba ii sheegay. Waan dhageystay, waana guursaday. 6 sano markaan isqabnay oo carruur isu dhalnay, waxaan ogaaday in xaaskayga ay gogol dhaaf samayso. Waxaana arkay iyada iyo nin aan daris ahayn oo qol ku wada jira. Markaan weydiiyey sababta ay ii khiyaanayso, iyada ayaaba isxanaajisay. Waan xanaaqay. Inta aanan waxba samaynin, waxaan maalintii 2aad ku soo laabtay gurigaygii oo cidlo ah. Waxay la carartay carruurteennii iyo ninkii dariska ahaa. Dib dambena uma aanan arkin iyada iyo carruurtiiba. Hadda waxaan joogaa halkan, waxaana ahay nin oday ah oo gogoshiisii geerida ku cidlaysan. Markaan 40 jir ahaa, waxaan helay qandaraas aad u weyn, magacaygana waxaa laga sii daayay warbaahinta oo dhan. Maalinkii 2aad, waxaa gurigayga soo buux dhaafiyey inta saaxiib iyo qaraabo aan lahaa. Qof walbana wuxuu ka cabanayay dhibaato. Waxay iga deynsadeen lacagihii qandaraaska aan ku qaatay oo loogu talagalay inaan ku qabto shaqo. Waxay ballan ku qaadeen in muddo yar ay ku soo celin doonaan. Waxaa la dhaafay waqtigii ay ii qabteen in lacagta ay ku soo celiyaan, kadibna way diideen in ay soo celiyaan lacagtii. Waxaan dhammaystiri waayey shaqadii qandaraaska aan ku qaatay, waxaana la igu helay dembi. Waxaa la i xiray 6 sannadood. Markii aan dhammaystay ciqaabta, qaraabadaydii iyo asxaabtii aan dartood xabsiga u galay ayaa iga kala dhuuntay. Waxaa jiray hal khalad oo aan sameeyey intaan noolaa, kaas oo sabab u ahaa in aan dhibaatooyin badan maro. Waxaan si fiican u arkaa khaladkaas. Haddaan kuu sheego, yuusan kula fududaanin. Khaladka ugu weyn ee aan sameeyey wuxuu ahaa in aan diiday inaan dhagaysto naftayda. Waxaan iska indhatiray taladayda, fikirkayga. Waxaan doorbiday inaan dhagaysto fikradaha dadka kale. Waqtigan la taagan yahay, qofka aan haysto oo meeshan ila jooga waa nafsadayda. Inta qof ee aan tala ka dhagaysan jirayna ilama joogaan. Runtii waa ay fiican tahay inaad dhagaysatid dadka kale, aragtidooda dhuuxdid, talana aad ka qaadatid mar walba oo ay habboon tahay. Balse waa halis in wax walba oo aad ku dhaqantid ay ka imaadaan dad kale. Waa halis in waxa qalbigaaga ku jira aad iska indhatirtid. Waxaan kugula talinayaa, caawa marka aad gurigaaga tagtid, fariiso, galaas biyo ah cab, indhahaaga xir, kadibna nafsadaada la hadal. Adiga isla hadal, caqligaaga kaasho, ka fikir waxa aad rabto, waxa aad nolosha ka rabto. Ilaahay kaliya ayaa joojin kara waxa aad rabtid. Ilaahay la tasho, u sheeg waxa aad rabto, ka bari inuu kuu fududeeyo. Alle ka sokow, nafsadaada ku kalsoonow. Taladaydu waa inaad baratid sidaad u dhagaysan lahayd nafsadaada.